ruushka gobolka Leningrad qasri ku yaal Babolovo. Dhismihii qasrigu wuu dumayaa, darbiyaduna waa dumayaan. Soo jiidasho heer caalami ah ayaa halkan ku qarsoon. Tani waa musqul weyn oo laga sameeyay hal gabal oo granit ah. Weelka qubayska ayaa cabriso aad u weyn yahay. Tani waa badeecad cajiib ah. Bal u fiirso sida ay u weyn tahay farshaxanimada ilbaxnimo hore. Waxaan fuulay gudaha saxanka qadiimiga ah. Madaxayga kaliya ayaa ka soo baxay dhinaca ka sareeya. Aad u siman oogada si fiican u dhalaalaysa. Waxaa jira meelo yaryar. Waxaa laga yaabaa inay sameeyeen muddo kadib. Xidhifka dibadda ee tubada qubayska waxaa lagu sameeyay laabasho. Masterskii hore waxay ula dhaqmeen granite adag sidii dhoobo jilicsan. Waxay sameeyeen qaabab qalloocan oo isku dhafan. Aad u siman xitaa dusha sare. Weelka qubayska waxaa lagu rakibay baloogyada granite ee leydi ah. Weelka qubayska ma taabanayo oogada sagxada. Sagxada hoolka waxaa ku yaal tiirarka dhagxaanta. Sidoo kale dhagax la safeeyay oo siman. Dadku waxay xadaan tiirarka qadiimiga ah baahidooda awgeed. Laakiin qofna ma xadi karo qubayskan. Waxa uu miisaankiisu yahay kacad sabtadan. Webiga weyn ee musqusha wuxuu leeyahay dalool yar oo la yaab leh. Dalooshan waxaa lagu dhajin karaa fartaada. Dhulka hoostiisa waxaa ku yaal tunnels dhulka hoostiisa ah. Waxaad ku socon kartaa oo keliya adigoo foorarsan. Markii hore tunnelyadu way badnaayeen. Tunnelyada waxaa daadiyay doobo dareere ah. Tani waa dalool biyo mareen ah oo ku yaal saqafka ee biyaha ayaa halkan ka soo qulqulay saxan weyn. Weelka qubayska waxaa lagu rakibay meel ka hooseysa heerka dhulka. Dusha sare ee dhulku waa heerka madaxa qofka. Qaabka gaarka ah ee furitaanka daaqadaha. Qolku ma laha albaabo aad ka soo jiidi karto musqusha. Markii hore waxay rakibeen tubada qubayska, kadibna waxay dhiseen dirbiyada. Isticmaalka tiknoolajiyada cariga ah, dadku waxay samayn karaan musqul dhagaxa oo la mid ah. Aad bay u adag tahay laakiin waa suurtagal. Tani waxay ka dhigan tahay in dadkii hore ay lahaayeen heer la mid ah horumarinta tiknoolajiyada. Waxaa se dhacday aafo iyo ilbaxnimo burburtay. Taariikhyahanadu waxay si badheer ah inooga qariyeen dhimaashadii ilbaxnimadii hore.